ورن هدي النبي محمد والنبيه وإلهي دورتي وضدك عقل بدنا وعربي الصادق الأمين أوي قانين بلشوين كي كحيرا لقد دعيه إنه نوالين ياهي إعلام كاسين تحوق لقي إلهي وحول يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بين هذا وركاسي فافيه دبتنا ضماد السحابي اللي رنجري وحولي مقالة مكان سوق لي isagoo dee rumaysan nin waalani joogo waxna uu tuftufi jiray dabeetana intuu nabiga u yimi wuxuu ku yidhi bal waxbaa yara tuftufaadna waxa la yidhi waxba kaasi ah aan wax kugu akhriyo maxaad odhan lahayd ninka nebi maxamed intuu u yimid raba inuu wax ku tufo sababtuna ay tahay iclaamkii quraysheedii wuxuu faafiyey war sheegaya nebi maxamed in wax ka sii yihiin calayhi salaatu wasalaam damaad wuxuu nabiga ugu yimi markaa inuu wax ku tufo دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام أي الله الله وحكم بالأبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد مركو يري أيوه يري أعد علي وركنات شكتب الكعلي نوالي هدو انتو ورشاقات هذا كعلي ما حد فلس لأنه مالك لك بحصوما marka horena war xikmada inaanu sheegin bay u badan tahay hadaa tiraado ku celina waxay u badan tahay inuu meel kale ka baxo ku celi buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam hadana ku celiyay ku celi buu hadana yiri saddex jeer markuu nabigu ugu celiyay ayuu damaad wuxuu yiri in badan baan kahana iyo caraafiin iyo sixroolayaal iyo shicir iyo waxa waan kala aqaanaa waan dhageystay buu yiri warkan aad sheegaysaa warkii qoladaas oo dhan maaha يعني إنه وحكسيهن متهد ضمدوا إسلامك لكن النبي عليه الصلاة والسلام دبتنا النبي يقول هالشيء سلق عليه النبي يقول حولي كلي أكل قلي ما يه أديك يرير كيني إلى وضع قلبي عدا حديث صحيح مسلم كاكو يالا